magaca magacaygu waa Abdiakin. Abdiakin Inta waa Gaduudo. Mana naanaystaada Gaduudo. Guduudo Ha. mana ada guduud amiya Ha. ada guduud ah Ha. okay intee ku dhalatay Aniga ayaan ku dhashay German. ad German ku dhalatay Laakiin Kenya ayaan ku barbaray. Kenya ku kortay ku barbaartay Ha. okay Kenya meeqa sano joogtaa 15 sano ha. okay maxaa heese ma taqaanaa ama suugaan ama gabayo ama maxaa ka taqaanaa af Soomaaliga Waxaan naqaan waxyar dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya. taariikhda Soomaaliga wax waa ka sheegi kartaa Soomaaliya waa taqaanaa Soomaaliya taariikhda Soomaaliga Ha waxyar. af Soomaaliga intee ka baratay ama yaa ku baray af Soomaaliga Aniga Nairobi ayaan ku baray. Iskuulka yar oo asxaabtay. asxaabta saaxiibada Ha. okay meeqa sano baranaysa af Soomaaliga Muddo 2 sano. 2 sano okay intee ka degan tahay German meel yar Cologne iyo Frankfurt dhexdooda. Frankfurt iyo Cologne dhexdooda meel u jirtaa degan tahay okay maxaa ka shaqaysaa adiga Arday baan ahay. arday baad tahay maxaa barataa Afka iyo dhaqanka. iyo dhaqanka Ha. okay maxaa jeceshahay macnaha ma jeceshahay inaad Soomaaliya tagtid oo ka shaqaysid Waxaan jeclahay inaan sameeyo inaan caawiyo dadka Soomaaliya. ilaa hadda qof Soomaali ma caawisay waxyar ha. meeqa qof camal Asxaabtay bas. asxaabta ninka odayga Ha. okay maxaa ka caawisaa marka asxaabtaada Guurka. guurka ka caawisaa Ha. inay guursadaan mise inay saaxiib yeeshaan Ha. inay guursadaan labadooda. labadooda Ha. Xaas baan leeyahay. xaasaa leedahay okay caruur ma leedahay Maya. maya meeqa caruur aad jeceshahay inay xaaskaaga ilaah duu ku siinaya aad dhashid imise caruur Caruur badan. caruur badan Ha. ma jeceshahay inaad guursatid 2 xaas 3 xaas 4 xaas Maya hal xaas bas. sabab hal xaas waa igu filan tahay. ugu filan tahay Soomaali weligaa ma tagtay weli ma arkin Maya. ma arkin Maya. Laakiin Kenya North Eastern waan tagay. Kenya tagtay Garissa tagtay ma ilaa iyo Wajir iyo Mandera. ilaa Wajir Mandera Soomaali ma la kulantay Ha. Soomaali badan. Soomaali aad u badan okay maxaa ka soo faa'iiday marka waan la hadlay dad badan oo Soomaali ah. Waan arkay magaalada Soomaali ah iyo bulo yaryar oo dad badiya. baadiyaha dad badiyaha ha. baadiyaha tagtay hilib geel ma soo cuntay caana geel hilib geel waan cunay. Ha. hilib geel ma jeceshahay Ha waan jeclahay. adi meeqa sano jirtaa 2 sano. no 2 sano aad ma jiri kartid meeqa sano jirtaa 28. 28 been ay sheegtay 2 sano ma jiri kartaa baby ma taadi Ma? baby ma taadi 2 sano markaa jirtid Afka Soomaali baby ayaan ahay. Soomaali baby ka tahay okay maxaa la ii sheeg hadda waxa ku fiirsanahay macnaha Soomaalida TV-ga laga arkay maybe inay ka arkaan meelo badan dad waxaa jira oo macnaha Swedish ah oo guduud oo adiga camal ah oo ku hadlaan af Soomaali laakiin qofka ugu horeeya oo German ah oo af Soomaali ku hadlaa aragna way ma jiraan dad macnaha oo German oo af Soomaali ku hadli karaan saaxiibada camal oo German ah oo af Soomaali ku hadli karaan ma jiraan Ha. ilaa meeqa way ilaa 5 amal. 5 camal ay ku hadli karaan inta ma joogaan mise meel kale joogaan Nairobi ayaan joogaan. Nairobi joogaan okay af Soomaali adima ka badiyaan mise way ka yihiin af Soomaali Kacay? af Soomaali badan may ku hadlaan mise af Soomaali yar Af Soomaali badan. ay ku hadlaan Ha. intee ka barteen yaa baray way joogeen Kenya North East. Northeastern Kenya joogaan meesha degan yihiin miya waqti badan. waqti badan ay joogaan meesha miya okay quraan mataqaana wax yar ha. akhri halaad taqaana Af Ingiriis. yes no problem am Somali Ma xasuusto. ay Ingiriis go akhrin kartaa quraan waan akhristay. akhri Laakiin ma xasuusto. ada muslim ma tahay mise Christian adiga diintaada Diintayda. ha Aniga Ciise Masiix ayaan raacaya.
okay cuntada Soomaalida maxaa ugu jeceshahay ها cuntada Soomaaliya ayaan jeclahay maxaa kamid hilib geel hilib ari basto bariis kulli sa u jeedin Cabdixakiin wuxuu ka imaaday Jarmal sa u jeedin macna wuxuu ku hadlaa luqadda Soomaaliga wuxuuna ku bartay 2 sano ku bartay Soomaan 2 sano ku bartay marka qof walba waxaan jeclahay waa ninka ugu horeeyay aan la kulmo Jarmal ah oo ku hadlaayo ii sheeg luqadda Soomaaliga